Peace of Allah be with you anytime, anywhere. You are welcome to Haga Academy, home of education, technology, and human development. This is our lesson 5 about Mega Book of English Grammar. Welcome more times for Haga Academy. Kusoo dhow casharkeennii shanaad barashada Mega Book of English Grammar. weli waxaan ku jirnaa chapterkeennii koowaad structure and sentences and sentence and structure jumladii qaab dhismeedkeedii. Objectiveskan caawa ka rabeen xaqiijino waa saddex objective oo ah 4.1 simple sentence. Maadaama halkan waxaan ka gelaynaa qaybaha jumladda. Hore waxaan u soo casharka ka horreeyay ku soo qaadanay beenka dhaweyd waxaan ku soo qaadanay deel ku yahay jumladda siyaaqeeda iyo habkeeda yani jumladdu qaabayshinka ay u imaan karto jumladda aan ku soo qaadanay ama halkan waxaan ku qaadanaa partiska iyo qaybaha jumladda ay tahay ku qaadanayna. Simple sentences jumladda deel ku yahay fudud jumlad fudud compound sentences jumlad mutaraakima oo laba jumladood fudud ka kor saaran iyo jumla deel ku complex oo jumlad ka kor saaran jumla mufida iyo deel ku jumlad khayr mufida jumlad markaas faa'iido leh oo markaas macna sameynaysa iyo jumlooyin badan oo macna aan sameynayna markaas qaar kood jumlad ka kooban iyo deel ku lastly access 3 aan qaadano binal karin. Okay, kusoo dhaca marka simple compound and complex sentences waxaan ka kormarnaa simple sentences. Well, simple sentences first you ask a question. Well, simple sentences maxay tahay horta? Simple sentence jumlada fudud contains only one predicate ay ka kooban tahay hal predicate ka kooban tahay. Predicate oo soo baranay one predicate ay ka kooban tahay kaliya. That means taasoo micnaheedu yahay marka it can have only one verb. Hal verb ay yeelan kartaa bas jumladan hal verb ay leedahay. That means it can have only one verb ay yeelan kartaa hal verb hal ficil ay yeelan kartaa. One predicate iyo one verb dul yiraahdo waa subject plus predicate ay ka kooban tahay markaas. Okay, examples to solution theory waxa lagu yiri they danced with joy joy bay la ciyaareen. They danced waxay la dheeleen with joy bay la dheeleen baa lagu yiri. Halkan waa hal jumlo aan la ku reebo one predicate oo ah they la ku with joy iyo they la ku dance they oo macnaha marka subject ah iyo dance with joy oo ah predicate markaas. Okay, and will you write it down tan maad naqili aan waxaan ku yeeranay maad guurin yani oo markaas qori. Will you write it down miyaad markaas qori waxaan ku yeerinaa kale aan miyaad qori. Okay, waa hal jumlo and waa hal deel simple sentence. Don't put out the light war iftiinka ha naga daminin ayadana maxay tahay waa hal markaas jumlo hal predicate iyo hal verb ay leedahay. Okay, and all the members dhamaan marka xibnaha of the team teamku played well si wanaagsan ayay u ciyaareen. Marka played well maxay tahay waa predicate laakiin all the members of the team maxay tahay waa haday la kuuraya waa noun clause ma noun phrase. Markaas haday la kuuraya waxaan tilmaamaysaa marka haday la kuurayahay waa noun clause waxaan marka tilmaamaysaa in noun camal ay u taagan tahay waa subject camal ay u taagan tahay. Okay, George is quite hardworking. George macnaha si waa nin si aad iyo aad u shaqeynaya macnaha adag si yar adag buu ninkaasi u shaqeynaya. Okay, and composition fiiri marka wadaba composition how will they la kuuriya and how will put together ama how will and make or will bully haday la kuuriya composition sidee marka aydan oo dhisayna balan aragno. Composition waxa lagu yiri one two or more simple sentences marka two ama labo ay wax ka badan markaas oo simple sentences ah are joined together la isku xiro ama la isu geeyo by connecting word ayadoo la isticmaalayo erey isku xiro ah like sida and but or tz etc iyo wixii la mid ah ereyada isku xiraasha and oo cadafka isku xiraaya ayadoo la isticmaalayo we good waxaan helnaa marka compound sentence. Marka jumlada compound sentence waxa ka kooban tahay laba jumlo simple sentence ah oo la isu geeyo ka kooban tahay oo la isku xiraayo connecting word erey isku xiro ah like sida and but because and they look before after iyo waxaas oo dhan dhamaantood neither iyo no iyo waxaas oo la isku xiraa markaas ereyadaas. Okay, look at these sentences jumladahan fiiri wadahan fiiri maxaa lagu yiri Samson went out for walk. Samson ninka la wuxuu baxay marka went out wuxuu baxay for walk tamash loo baxay ninkaasi tamashle ayuu ninkaasi aaday baa lagu yiri tamashle wax u bax socod ayuu baxay socod walk yani socod waaye socod ayuu ninkaas u baxay baa lagu yiri oo socod ayuu meel soo maray u baxay. This is one sentence, it's a simple sentence. Tan waa hal jumlo waana simple sentence. Tan labaad waxa lagu yiri George stayed at home. Georgina guriga ayuu joogay marka
how we can marka able to connecting these two simple sentences after we get compound sentences. Okay, waxaa laga marka both labadaan marka these are independent sentences waa laba jumlad oo kala madax banaan. Samson socod ayuu baxay, George guriga ayuu joogaa. These are two sentences, it's mid kasta waa independent oo mid oo madax banaanta goona ay u taaganta. Each mid kasta having waxa leedahay subject faacil ayay leedahay and predicate wax ka soo haray marka we can change them this. haddaba marka sidan soo socota ayaan isugu xiri karnaa. See, Samson went out for walk. Samson ninka la yiraahdo wuxuu u baxay socod, but laakiin George ninka la stayed home. George guriga ayuu joogaa. marka bad maxay tahay xarf cadaf waa isku xir, laakiin weeyaan isku xir, laakiin isku xir waa isku xiraysa loo jumla ay isku xiraysa. Okay, similar silamida waxa lagu yiri they reached the port and took a ship into India. waxa lagu they reached waxay gaareen the port dekada ayay gaareen and took waxana qaateen a ship markab to India u socday raaceen. markab India u socda ayay raaceen. so maxay tahay marka an waa connection word waa isku xire, labada jumla waa kala madax banaan yihiin. an ayaa isku xirada labada jumla, kana bad ayaa isku xirada, sidoo labada jumla way kala madax banaan yihiin, mid kale oo ka madax banaan yahay. Okay, tagana waxa lagu yiri you must return the book buugga waa inaad soo celisaa. you must return the book buugga waa inaad soo celisaa, or haddii kale bay aad bixisaa tis price qiimihiisa. buugga waa inaad soo celisaa buuggan, haddii kale aad bixisaa buugga qiimihiisa waa inaad iska bixisaa. marka ayaa isku xiraa maanta or oo ama ah ayaa isku xiraysa. connect waa la isku xiraa bay, it is base price, fadlan buugga qiimihiisa bixi waa madax banaan tahay. you must return the book buugga waa inaad soo celisaana ayadana jumlad kala madax banaan. these two simple sentences are connected by the connecting word that is or and it's made compound sentences. jumlad compound ayay markaas samaysay. Okay, live to learn and you will learn to live. live to learn and you will learn to live. live to learn waana u noolo inaad wax barato, and you will learn waxa marka wax u baran doontaa to live inaad noolo. this is true, taas waa dhab marka sax weeyaan. u noolo inaad wax barato, waxaad u noolaan doontaa wax u baran doontaa inaad noolaato. Okay, and complex sentence marka maxay tahay jumlad mutraadka maxay tahay. jumladan mutraadka waa jumlad iska saaran jumlad qeyr mufida waxba aan faa'iideynaynin iyo jumlad marka mufida iska saaranto oo wax faa'iideynaysa. look marka hadii jumladahan fiir marka socda God so able wuu og yahay baa lagu yiri. God so able wuu og yahay that the lad was good in iftiinku uu wanaagsan yahay. iftiinka binaadamka la siiyay yani inuu wanaagsan yahay able wuu og yahay. marka jumladan sidee u kala qaadana it's consist of two parts, laba qaybood ay ka kooban tahay. two parts ayay ka kooban tahay, laba qaybood ayay ka kooban tahay. jumladani laba qaybood ayay ka kooban tahay. mid maxay tahay waa God so able wuu og yahay. God so able wuu og yahay. hayatana that the light was good in iftiinku wanaagsan yahay. labadan qaybood ayay jumladani ka kooban tahay. jumladani waxay ka kooban tahay labadan qaybood. marka waxa lagu yiri the first part qaybta koowaad is independent waa qayb madax banaan. God so able wuu og yahay, ebe ala ilaahay wuu og yahay, ebe wuu og yahay. this is independent part, but like in the second part qaybta labaad depend on waxay ku xiran the first part qaybta koowaad ku xiran tahay oo ah qaybtan labaad oo ah that the lad was good waxay ku xiran tahay micnaheedu inuu saxmo qaybta koowaad oo ah God so ayay ku xiran tahay. it is meaning xagga micnaha, for it is meaning xagga micnaha ay ku xiran tahay. marka the independent part marka qaybtan madaxa banaan ee xorta ah ee God so ah waxa loo yaqaanaa lagu yiri oo loo garanayaa main clause jumladii marka muhiimka ahayd. main clause jumladii marka muhiimka ahayd. the dependent part qaybta ku tiirsanana waxa loo yaqaanaa subordinate clause jumlad qeyr mufida ayaa loo yaqaanaa. subordinate clause jumlad qeyr mufida ayaa loo yaqaanaa. marka tusaale ahaan fiiri, tusaale ahaan waxaad fiirisaa haddii la ku roon yahay waxaad fiirisaa haddii aan raacno haddii la ku roon yahay when I was 8 markaan ahaa 8 jir. when I was 8 markaan ahaa 8 jir. when I was 8 markaan ahaa 8 jir yani when I was 8 markaan ahaa 8 jir. haddii la ku roon yahay I do something like that wax noocaas ayaan sameyn jiray. ama haddii la ku roon yahay I play football, I was play football waxaan ciyaari jiray kubadda cagta. when I was 8 I was play football waxaan ciyaari jiray kubadda. when I was 8 markaan ahaa markaan 8 jir ahaa jumladaas maxay tahay waa jumlad qeyr mufida. maxay jumlad oo subordinate clause waay, laakiin
I was play waxaan ciyaari jiray football kubadda cagta that is a main clause weeye waa jumlad dhammaystiran taasi sidaas oo marka micno buuxa tan waxa laga yaabaa fahmaysa laakiin when I was 8 markii aan yaraa wantaas ka horeyda ayaa sheegaysa marka inay marka yar jumladaas marka waxa micno mas when I was marka yara he maxaa sameyn jirtay I was playing football waxaan ciyaari jiray kubadda cagta okay marka waxa lagu yiraahdaa complex sentences jumladan mutaraakibka aad ku weyno has only one main clause waxa yeelan kartaa kaliya one main clause ay yeelan kartaa hal main clause ay yeelan kartaa main clause maxaa laga wadaa yaani hal jumlo oo markaas deerka mufiida ay yeelan kartaa one main clause ay yeelan kartaa laakiin may half waxa yeelan kartaa more than one subordinate clause hal jumlo ka badan oo غير مفيد aan faa'iido keenaynin sida dalada was good in oftinku wanaagsan yahay hayay macna ma sameynayso when I was 8 markii aan yaraa marka hal 2 3 4 5 6 10 iyo wax ka badan ayay noqon kartaa markaas jumlada main clause-ka markii wax subordinate clause-ka noqon kartaa oo غير مفيد ka ah okay waxa laga marka I know waan ogaa saalan fiiri I know waan ogahay that you will success inaad guulaysato I know that you will succeed has because maxaa yeelay you are hard working aad u shaqeynaysaa you are I know waan ogahay that you will succeed inaad guulaysanayso waan ogahay okay sabab maxaa dhacay because maxaa yeelay you are hard working aad ayaad u shaqeynaysaa marka waxa lagu leeyahay fiir halkan yana ka hor dhici waxa lagu yiri there's nothing that this book can tell me which I do not already know there's nothing halkan waxa ma aha that this book can tell me anigu sheegi karaya sabab maxaa dhacay which so I do not already know ana hore u garanaynin marka meeshan fiiri waxa lagu dhahay you will notice waxa ogaataa lagu yiri that the main clause in main clause ka marka marka tirtan in main clause ka marka almaran ka tiro waxa ogaataa wali marka you will notice waxa ogaataa that the main clause in jumlada muhiimka ah ama main clause ka ee jumlada independent-ga ah and subordinate clause iyo jumlada subordinate clause-ka are joined la isku xirayo joined together la isku xirayo by connecting word array isku xira la isku xirayo like sida that which because oo hadda soo adeegsanay erayada isku xirayaasha ayaa la isku xirayaa jumladahan غير مفيدka ah iyo jumlada mufidka ah ogow hadde mid doonta ayaa hormari karta oo waxaad ogaataa hadii jumlada ay bilaabato ay when I was 8 salaan ka bilaabato when I was 8 and halkan xukumo qori aqaana sorry when I was 8 markii aan yaraa comma ayaa la siinaya marka hadii jumlada غير مفيدka ay horreeyday weeyaan when I was markii aan yaraa comma I was playing football waxaan ciyaari jiray kubadda cagta laakiin hadii ay horreeydo I was playing football waxaan ciyaari jiray kubadda cagta when I was 8 markii aan yaraa fiiri one ayaa la keenaya oo isku xira ah okay sidaas ay marka la soconaysa exercise ka fiiri عشرة هذا ودير access كفيري which of the following are simple compound and complex sentences جملتها نصوص على كيبا compound ما كيباس كيبا simple كيبا compound كيبا complex sentence وحلو جيري من بني آدم كيس social animal وحيوان بلشاوي بني آدم حيوان بلشاوي حلو جيري okay جملتها محينا وانسا و simple sentence because it have one subject and one predicate يلا ده God helps ابو عاوية God helps ابو عاوية those كوا هيه who helps themselves كوا يجوز عاوية ابو عاوية this sentence is a complex جملة complex because God helps those الله عاوية هي حال عاونا يا who helps themselves كوا نفتو عاوية كوا يجو is عاوية مركز okay جملة دلوقتي he told me وحي شيء that he was going to the abroad for the whole day إنه أصعده هذا الكوريا أن دبدأ مقارج كأنه صعده مع الماء فصحة مركز he told me وحي شيء أنت سمعتها he told me وحي شيء أيه that he was going محيطة مركز محل اسكو حري he was going abroad for the holiday وحي أصعد هذا الكور abroad كلك جملة إنه complex وحلو يري how did you enter the room if the door was locked sideed u gashay how did you enter the room sidee qolka u gashay if the door baabku was locked u xiraa marka jumladan mutaraakib saddex jumlo complex marka okay waxa lagu told them wuxuu u sheegay markaas that they could all get into the bus inay marka baska hadii la kuuriyo ay xaaladaan marka ay baska ay qaataan hadii kale if they formed aku hadii markaas sax marka jooga marka jumladan kalena ayaduna waa jumladan markaas hadii la kuuriyo complex intaan kale adaal rabaa inaan soo daydo
adaan ku dhaafaya deel kuriya 4 xabadaan ku dhaafaya isku soo day deel kuriya subscribe channel kana subscribe garayso oo gambar ka furo si casharada soo socda u ogaatay binal kareem aad iyo aad ayaan ku macasalaameynaya intaana adigu bal isku soo day oo nafta ku tijaabi well done